السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن wanaagsan dhammaan asxaabta nagu xiran ugu horeyn waxaan guud ahaan baxda saacid tube ka raali gelinaynaa muddadii aan hawada ku kala maqnayn sida aan la wada soconnaba waxaa maalmo kooban inooga dhiman yahay programka DV Lottery-ga ama bakhtiyaar nasiibka Mareykanka sidaa darteed waxaan iskor taagaynaa hadalhayntii ugu dambeysay ee ka soo baxday USCIS Diversity gaar ahaan qaybta lotteriga u qaabilsan lagu sheegay waqtiga rasmiga ah ee uu furmayo barnaamijka lotteriga ama bakhtiyaar nasiibka Mareykanka waxayna iclaamiyeen website-koodana ku sheegeen in maalinimada Arbacada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha Oktoobar 2022 saacaduna tahay 12 galabnimo waxa loo yaqaan Eastern Standard Time-ka in uu si rasmi ah u furmi doono waxa uu sidoo kale xirmi doonaa isla maalinimada Arbacada ah 8 November 2022 sidoo kale waxaan isku dayi doonaa in su'aalaha faraha badan ee ay bulshadu soo weydiinayso in aan ka jawaabno marka inta aanan u guda gelin jawaabaha su'aalaha ay bulshadu soo weydiinayso waxaan rabaa inaan iskor taagno dhowr arrimood DV Lottery 2024 ama DV Lottery 2024 waxa requirementskiisa ama shuruudihiisa guud ahaan laga reebay wax passport ah halka sanadihii hore ay kamid ahayd shuruudihiisu in qofka uu passport haysto ama ku xareysto barnaamijka bakhtiyaar nasiibka Mareykanka ee lotteriga loo yaqaan taas micnaheedu ma ahan in aad Mareykanka passport la'aan ku tagayso yacni haddii aad ka mid noqoto dadka guuleysta ama la select gareeyay passport waa laga doonaya waxa kale oo muhiim ah inaan xusno da'da lagu apply gareyn karo DV Lottery-ga runtiina ma jirto da' si gaar ah oo website-ku u xusay laakiin waxa shuruudaha kamid ah in qofka qualificationskiisu gaarsiisan tahay ugu yaraan high level ama dugsiga sare ama sidoo kale uu leeyahay work experience ama khibrad shaqo marka waxaan dhihi karnaa kuma jirto da' laakiin si dadban ayay ugu jirtaa sidoo kale haddii aan eegno footada ama sawirada loo baahan yahay inaad isticmaasho runtii waxaan oran karnaa waa meelaha ugu xasaasisan ee u baahan in qofku aad uga taxadaro maxaa yeelay wax walba oo aad qabato haddii footada ama sawirku uusan buuxin shuruudihii loogu talagalay sida size-ka ama cabirka sawirka positionka ama goobta uu qofku sawirka ku galayo exactly background-ka qofka laga doonayo ama laga rabo pose ama expressionska waxa loo yaqaano oo ah dareenka uu qofku xilligaas muujinayo waxa loo yaqaan shadowska ama hooska oo aad iyadana muhiim ah inuu qofku ka taxadaro resolutionka ama quality-ga ama si kale aan u dhaheed tayada sawirka iyadana runtii waa muhiim sidoo kale waxaa jirta dad marmarka qaar ku weydiinaya waxa loo yaqaan glasseska ama awkiyaalaha ma lagu geli karaa sawirka oo runtii ah su'aal in badan soo laalaabatay in badanna isku dayna inaan bulshada ka shaafino ugana jawaabno waxaana muhiim ah inaan isla ogaano ma jiro standard photo caalamka la isla aqoonsan yahay oo loo isticmaalo glasses ama awkiyaalo hadba sidaad u taqaan waxaa kaloo kamid ah su'aalaha inta badan dadweynuhu nagu soo celceliyaan telefoon ma lagu apply gareyn karaa barnaamijkan jawaabtu waa haa telefoon waa lagu apply gareyn karaa waa haddii aad tahay qof fahansan qaabka loo isticmaalo ama loogu apply gareeyo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa markaad isticmaalayso aaladan PC-ga ama computerka iyo telefoonku meelaha qaar inay ku kala duwan yihiin sidaas darteed waa lagu isticmaali karaa waana lagu apply gareyn karaa telefoon waa haddii aad fahansan tahay halkee ama dalkee ku habboon in aan ka apply gareeyo waxay kamid tahay sidoo kale su'aalaha nagu soo laalaabtay lotterigu dal ama gobol kuma xirna waddanka rabtid joog waad apply gareyn kartaa haddii aad fahansan tahay qaabka loo apply gareeyo ama Uganda joog ama Kenya joog ama Ethiopia joog ama Soomaaliya joog America joog meesha rabtidba joog waad apply gareyn kartaa kaliya waxay ku xiran tahay inaad fahansan tahay qaabka loo apply gareeyo ama haddii markaas aad garanayn inaad raadsato cid ka caawisa lacalla haddii aan guuleysto ama aan ka mid noqdo dadka la select gareeyay safaaradee baan ka dhigtaa interview-gayga su'aashan waa muhiim horeyna waan uga jawaabnay haddana markaan aan adkeynaynaa haddii aad ka mid noqoto dadka guuleystay ama guuleystayaasha warqadda lagugu select gareeyay ama marka website-ku kuu soo bandhigo in lagu select gareeyay ama lagu aqbalay marka horeba warqadda aqbalaadda ayay ku caddahay postiga ama meesha aad ka marayso safaaradaada aad ka marayso tusaale ahaan haddii aad Uganda joogto waxaad postigaagu noqonayaa Nairobi taas tusaale ahaan baan kugu soo qaaday marka way ku caddahay postiga meesha aad maraysid waxay ku caddahay warqadda lagu soo dirayo inaad guuleysatay kuu sheegaysa bay ku caddahay kuna qoran tahay marka waxaa jirta lacalla haddii ay dhacdo inaadan ku qanacsanayn marka aad buuxinayso foomka loo yaqaan DS260-ga ayaad codsanaysaa in safaaradda lagaa bedelo oo safaarad kale lagugu bedelo tusaale ahaan Nairobi ahayd Ethiopia kale codsanaysa marka waa bedelan kartaa waxaana ku bedeli kartaa markaad buuxinayso barnaamijka loo yaqaan DS260-ga oo ay buuxiyaan dadka la aqbalay ama la select gareeyay buuxiyaan barnaamijkaas dhexdiisa baad
ku apply garayn kartaa safaaradda kale markaas aad doonayso sidoo kale waxaan doonayaa inaan xuso oo aan videogan uga faa'iideysto waxaa jira websiteyo been abuur ah oo aan ahayn websitekii saxda ahaa sidaa darteed waa muhiim in aad ka taxadirto arrintaas oo aadan xogtaada khaaska ah marnaba la wadaagin websiteyada been abuurka ah ee aan kor ku soo xusnay ugu dambayn inta lagu guda jiro muddada bisha ah ee programkan lotterigu socdo si dhow ayaan iskula socon doonaa waxaana mar walba diyaar u nahay inaan weydiimihiina ka jawaabno haddii allah awoodda le aqbalo haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad soo booqato janalkeenna waxaa naga xasuusin ah in aad muuqaalka like garayso sii sheer garayso subscribe-kana aadan naga ilaawin si dad badan uu u gaaro ugana faa'iidaystaan sidoo kale wixii su'aalo ah ee aad qabtaan waxaan iskala socon doonaa instagramka iyo facebookga waa anigoo saacid xaaji aadan ah iyo guud ahaan bahda saacid tiyub oo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu